Ma taqaanaa hogaamiyaha ugu da'da yar qaaradda Afrika loona tixgeliyo inuu yahay dhammaan dalalka caalamka madaxweynayaashooda ka ugu da'da yar, sidoo kalena loo tixgeliyo madaxweynaha ugu firfircoon uguna dadaalka badan qaaradda Afrika. Waa madaxweynaha dalka Burkina Faso ee lagu magacaabo Ibrahim Traore. Qisadiisu waxay kula muuqanaysaa marka lagaga sheekeynayo sida filim oo kale, laakiin waa run iyo dhab xaqiiqo ah oo dhiirigelinaysa dhammaan dhalinyarada qaaradda Afrika. Mowduuceen maanta waxaynu ku falanqayn doonaa hogaamiyaha da'da yar ee loo yaqaano Ibrahim Traore ee madaxweyne ka ah dalka Burkina Faso. Qodobka ugu horeeya waxaynu ku soo qaadan doonaa taariikh nololeedkii iyo goortii uu dhashay Ibrahim Traore. Ibrahim Traore waxa uu dhashay sanadii 1988 wuxuuna ku biiray ciidamada qaranka isagoo dhalinyaro ah. Waxaa lagu yaqaanay geesinimo, daacadnimo iyo hufnaan iyo hawlkarnimo. Markii dagaalada kooxaha hubeysan ay dalka burburinayeen, isaga ayaa ka mid noqday saraakiishii sida tooska ah ula dagaalamay una soo afjaray badankooda kooxaha hubeysan. Qodobka labaad aynu ku falanqayn doono mowduuceenan waxa weeye sidii ku yimid xilka Ibrahim Traore. September 22 amba September 2022 Traore iyo ciidankiisu waxay afgembi ku rideen madaxweynihii hore ee dalka Burkina Faso, saaxiibkii musuqmaasuqa isticmaarinta iyo hagadaamada dalka Burkina Faso ee lagu magacaabi jiray Paul Henri Damiba. Kadib markii shacabka iyo ciidamadu ay ku qanceen inuusan waxba ka qaban karin waxyaabaha horumarka iyo wanaagga dalka. Waxaa la yaab leh oo la yaab ahayd in shacabka ay si weyn u taageereen Ibrahim Traore iyagoo ku tilmaamay geesi qaran. Hogaamiyaha ka horreeyay ee Damiba dhowr mar ayuu Ibrahim Traore fursad siiyey si uu dalka wax uga bedelo, balse markii Ibrahim Traore iyo saaxiibadii ay ku qanceen inuusan Damiba dan u soo wadin dalkooda Burkina Faso, waxay go'aan ku gaadheen inay afgembiyaan. Afgembi bay ku sameeyeen, shacabkiina taageero fiican ayay ka heleen. Qodobka saddexaad aynu ku falanqayn doono mowduucan waxa weeye fikradiisa siyaasadeed. Ninkani muxuu aaminsan yahay? Ibrahim Traore wuxuu aaminsan yahay Pan-Africanism, taasoo macnaheedu tahay in Afrika isku tashato, hal lacag iyo hal bana yeelato. Wuxuu xiriir dhow la sameeyay dalalka deriska ah sida Mali iyo Niger oo hadda ay joogno oo ka dhaxeeyo midow iyo wada tashi xooggan oo saddexda wadan ay ku midoobeen. Wuxuuna si weyn ugu soo dhawaaday oo aad saaxiibtinimo la yeeshay dalweynaha Ruushka, isagoo meesha ka saaray saameynta reer Yurub ku lahaayeen dalkiisa. Wuxuu dhalinyarada ku dhiirigeliyay inay ogaadaan in hogaaminta iyo mustaqbalka Afrika uu gacantooda ku jiro. Qodobka afraad, muxuu caqabado iyo dhaliilo la kulmay Ibrahim Traore? Si kastaba ha ahaatee, Traore ma aha mid aan la dhaliilin. Waxaa lagu eedeeyaa inuu xadiday xorriyadda saxaafadda iyo mucaaridka. Weli dalka waxaa ka jira weeraro hubeysan, taas oo muujinaysa in balqaadadiisii amniga aanay weli dhammaystirmin. Wax walba oo wanaagsan caqabad ma waayaan, oo rasuulkeeni Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo naxariis iyo hanuun ummadda u siday ayaa caqabad lagu noqday. Qodobka shanaad waa saameynta uu leeyahay ninkani iyo saameynta uu ku yeeshay caalamka iyo gaar ahaan dalkiisa iyo dhalinyarada Afrika. Dhalinyaro fara badan oo Afrika ku nool ayaa ku tilmaamay Ibrahim Traore inuu yahay sankaaraha cusub. Sankare waa marla araggii soo maray qaaradda Afrika iyo gaar ahaan dalka Burkina Faso sideetameeyadii, isagoo la barbar dhigay hogaamiye caanka ah ee Thomas Sankara oo ahaa marla arag soo maray qaaradda Afrika. Waxay arkaan oo Ibrahim Traore ay dhalinyarada Afrika u arkaan astaan madax bannaani, sharaf iyo rajo cusub oo Afrika u soo baxaysa. Haddaba ugu dambeyntii, Ibrahim Traore waa tusaale muujinaya in dhalinyaro da'yari ay hogaamin karaan dalal waaweyn oo sida Burkina Faso oo kale ah, oo ay rajo cusub iyo iftiin siin karaan qaaradda Afrika. Laakiin su'aashu waxay tahay, ma noqon doonaa geesiga cusub ee qaaradda Afrika, mise waa hogaamiye kale oo caqabadu burburin doonaan? intaan mowduuc lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.